قويس كان صومالي وقويس ملقي قليو درس كيسي إلهي دad aafaysan buu ka dhigay oo gaalaasaa lagu xiray xagana bad baa ka cilin baxay ku banaan inta tabartooda waa taariikh al-bashid buu akhriya waa qoyska ugu halgan badan fi taariikh 12 qarni bay Soomaalidu dagaalamaysa 12 qarni weligood hal qarni ma dhamaan iyagu jihaadin fi taariikh taariikh hal akhriyo ummadihi kale wadan islaan ahaan jiray gaaladu qabsatay way isdiifaanba Soomaalidu waa qoys la kado ilaa aminkan taagan way qoys la kado way Andalus laga sabir xagee ku dambeysay sida Andalus loo qabsaday ayaa loo qabsaday bariga Afrika oo dhan Soomaaliya loo qabsaday awood lagu bixiyay annagoo Afrikaan dagaalamayna Portugiis nagu soo duulay Ahmed Gure mujaahidka caalamka ayaa dilay qarniga 10aad halgami jiray Portugiis baad markuu Axmaar Samriyay oo hilibka cayrin baray oo maqala ugu tagay oo aksum ka saaray oo rabo inuu badda ku daro Faransiis baa soo duulay reer Yurub baa jabiyay mar walboon dariska xun aan iska qaadno waxaana jabiya dariska aan isayna tolki oo tolka waaweyn laakiin anagu tol la'aan baan nahay labada goor hal mar baa waa Uthmaaniyiin noo soo gurmadeen 900 oo ciidan noo soo direen kadibna biilkoodii markaan tabar weyn la fuqara iska nayaan iska noqda markay iska noqdeen hoona la baabi'ay taariikhda dib u akhriya طيب ولا مصاريف ان ير نو سو dirtaan aan eednayba dib ma laha muhiimadu waxa weeyo qoys 12 kaas 14 ka qarni halgamaya iyaga laga helaa waligood awood in loo sheegto meen oo ma hoggaansamaan cadow uma hoggaansamaan mu'arrixiinta carabeed baa ka hadlay amiir shakiib arsalaan baa u dambeeyay wuxuu waa niman madmadow dhuuban oo dhaadheer oo on murqa waaweyn lahayn wuxuu laakinahum ashidaa'ul ba'si a'izzabu هو مري صومالي ومري انتم مري بماس ادو عاي وحول waa meel quran oo wasaq badan Soomaali aad buu amaar wuxuu waa niman madmadow dhuuban oo san dhuuban oo moodaynay carab ku jirto laakiin xagga dadnimada wuxuu laakinahum ashidaa'ul ba'si a'izzabu al-imam qalqashanti kitaabkiisa subh al-aasha oo qarniga 8aad Soomaalidu ka waramaya wuxuu waa dadka bini aadamkii ku nool gobolka dadka u aqli badan way buu waa adkiya buu goormu ka waramaya wuxuu ka waramaya 800 sano mid ka waramaya 700 sano ka hor buulay Soomaalidu waa dad jinsi kala oo ka aqli badan basharkii la nooliyeen ma taymsa ila aminka sidii ma taymsa ma Afrikaanku waxay idin yaqaanaan yuhuudda Afrika idin yaqaanaan xagga xisaabta iyo aqli badnida imtixaanka waxaad isku xukumi laadihiin u heshiin laadin waa aqliga faraha badan ee zaidka ah wadi faanteen baan u malay maxaasawle waxa la rabaa dadku inta li soo aqli badan iyo shacab la hogaamiyo inay noqdaan ardayga Soomaaliga ka yar 20 jirka iyo odayga 8 jirka isku waxbay dareemahayaan way masri kartid indhaha ma qaban kartid adeer waan ku fahmi ku leeyahay inaad garateen baan ummadu bini aadamka dagaalada iyo kuwa islaamka kale walaalaheedayo waxay ku rooyihiin dabaqa saro oo wax hogaamisa oo aqli badan waxay leeyihiin allow saalo waxa la yiri indhii waa kuma indhii waa riyacad baa la yiri arigu markuu suudiyaha hogaamiyo ariga meeshu marayo iduu waa iska dabaso waa raciyad shacab weey riyaha hogaamiye idinku waxa weey kulligu maxaa tiin riyad wada noqotay afadaas hortayda haysato wad ku dhibantiin marka qoomkan waa qoom inta soo halgamaya tabar baa halka dhigtay markay gaalaysiin xariis daraa in lagu qad qaado waa aqal xumiye diin la'aan wax yar baa idhima waqtigan waa dheeraaday habeen dambaan gabagabeyn insha Allah ta'ala iyo wixii su'aalaad qabtaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh